ninka Soomaaliyeed wuxuu doonuu samayn karaa ya aniga hadda kula hadlaya 19 baan guursaday ma dhici karto ha aniga kula hadlaya 12 baan guursaday naagahayga qaar ba social media yimid waad iska leedahay 12 goor baad guursaday oo 12 jir baad ahayd markaad bilowday waa anaga ayaa barag waad iska leedahay 12 baad guursanayna horta run baan kuu sheegaya weligay miyaa baan kuu sheegay aniga hadda marka waa sheekadii nimanka xaafadiina lagu sheegi jiray loo oran jiray guurkii aniga kula hadlaya islaamahayga barba meesha yimid marka guurkii inaabti marka guurkii waxa iskaga ka khaldamay de adiga waxa u maleynaa guurkii shukaansigii baa iskaga ka khaldamay ma iskaga ka khaldamin dumarka background check ma sameeyaan hay anigoo kale hadda right now hadda mid qolkaan saaran inta u taga aan la sheekaysto ma dhahayso meeqa soo guursatay maxaad ku soo kala tagteen maxaad gabdhihii hore ku xumaysay background check ba male wallahi waa runtii you have a point qoyan waa maqiiqanahay marka anaga waxaan waa naloo fududeeyay yaa noo fududeeyay idinka noo fududeeyay wallahi balaan kugu diido taaba kuguma diiday hadda gaalada haddii aad guursanaysid maxkamad baa la isgeeyaa oath baa la ismariyaa dhaar baa la ismariyaa sharci baa la isku guursadaa laakiin Soomaaliya ma leh waa runtaa aniga kula hadlaya anaga wax kasta idin fududeynay kaabaan kugu diiday aniga kula hadlaya 12 meher baan u fariista ina ma ilaahay baa kugu og wallahi billahi bad credit baan ka hay xagga guurka ma 11 you're so young how is that's insane wallahi oo billahi sanad gudihiisaan 2 jeer guursaday markhaati bay ka yihiin oo leeyahan baliyay waliba qolkaan dumar naagta sukaasatay waa meherisaaya u maleynaa marka saas sheekadaada waa saas marka ayagoo og shalay midaan soo furay mid ayagoo og bay haddana yeelayaan oo aysan idiideyn naagaha Soomaaliyeed ma maqlaysaan gabdhaha yaryar Soomaaliyeed waa kaas bal hadda eega maxaa ka sheegaysaan qof kale oo dacwad ah ugu haysataan oo qalqalinaysaan gabadha meesha waa runtii labaan markhaati ka ahayn sanad gudihii waa kuwan kor saaran oh my god qaarna wuu ku sigtay way ka fakadeen kowde 12 meher baan u fariista oo war waxaan ku weydiiyo hadda sibir subax hadaan damcayna guursadana waa guursan karaa cari xujay adigu hadda waa kaad hadda inaabto mid ma ku weydiiyaa sheekadii luqbayba gashay fiiri maxaad baa soo raadinaysaa waayahay waxaan raadinaynaa male waxaan raadinaynaa soulmate qof aan ku degano qofka yagiya qof kasta qofkiisuu raadinayaa de haya marka maxay tahay naagahan badan aad meherinaysaa banaanka adoo jooga ma raadin kartid miya soulmate-ka ma markaad maaragtay amsaaxaha arrinta ka dhigto ayaad ma waxa is leedahay sariirtaad ku fahmaysaa soulmate-ka what's going on maya waxaan aaminay mawadatan waraxma waxay timaadaa bacda sawaaj hadda waa yahay wixii hore u shaqayn waayay hadday shaqayn waayeen ma dabadun baa haynaysaa soo wixii shaqayn waayay inaad wax ka bedesho may ahayn mar iyo laba hadday dhacday iyo saddex afraadka iyo inaad wax ka bedesho soo ma ahayn maxay tahay waxaa la iska wadi sanadkan waa daahay bishii shanaad baa la marayaa welina ma guursan 2026 hadda waraxma ma wadda ma raadinaysid inaabta iyo soulmate-oona waxaad raadinayso maba taqaanidba anaa runta kuu sheegaya waxay ii soo qorayaan tuur waa doqon see doqon u ahay aniga 12 naagood bay guursan lahaa haddaan doqon ahay ما يدقن معه أليس رنتو شيء أليس رنتو شيء ناياني رنتو شيء أنا وحويه أليس رنتو شيء وحنا رنتو شيء because وحوجي هاي حد مد نجيسنا يسوي حالكم كتيرتا يلا بقى يصدق بقى إنا يبغى رالكوا أي هذا جورسنا يا والله بالتطبيق ضدك رنتو وين عبين لك رنتو حنون عاديات قبلهن رج موايان رجنا دمر موايان ليس موايو meeshaan qofkii baad credit qof kale baad credit u helaya meeshaan qof kasta qofkiisa sugaya oh my god waa ku faa'iideeyo dadka kale siinayaaye bal ku jiro inaan ku faa'iideeyo waxaan ku sheegayaa doodaan hadaa qabato waa lagu kala tagayaa meeshaan ama fatxiya walaalo in yar ku dar kara soulmate wax go ahead go ahead soulmate waxa heli kartaa hadda naftaada heshay ma garatay ma heli kartid soulmate adigoo ma garatay isku ma adigoo israadinaya ma garatay fajiho ma lihid yani waxaan wax lagu faano maaha walaalo ma garatay xataa haddaad tiraahdo heedha dumarka qaldan dumarka niman baa mas-uul ka ah diinta islaamku waxay fartay mid kastoo muslima inuu gabadha u guursanayo si xaq ku leh uu ku qaato maaha kaftan maaha because iyadu way maqan tahay ama iyadu waxay ku aragtaa inaad tahay caan ama iyadu waxbay kaa raadinaysaa waxaas waa qalad
ninka wuxuu ku yahay ninka darajad wuxuu kaga weyn yahay xikmadiisa caqligiisa garaadkiisa iyo go'aankiisa markuu qaadanayo fa cumar wallahi waa ka xumahay يعني wax lagu kaftamo maaha waxaasi ma garatay nimanka waxa rabtaan beenta idin sheego niyada idin dhiso yiraahdo abay saas ma anigu waxa horta ma garatay cumar wallahi kama helo ma tiradan aniga maana faanay hadda run baa idin sheegay maya laakiin waxay muu faanina run buu sheegay laakiin waxaan sheegaya at least he's being honest laakiin mid baan kuu sheegaya in abti haddeer aan kuu sheegaya tobanka waalan misaana waalan igursaday maya adiguna waa waalan tahay 11 kuna iyaguna faa'iido ma lahayn bandhigayso waxaan ku leeyahay labadii ugu horeeyay maybe laakiin intii kale ee background check sameyn waayay wax weyn baa ka khaldanaa bad mid baan kuu sheegayaa ilo qof kasta waxa weeyaan intiisa waa in la siiyo waa kaas adli runtiisii buu adli halkaa la joogaa anigu I'm not gonna fault him laakiin mid baan kuu sheegaya may sug mid yaraan dhahde waxaan kuu sheegayaa Omarow inaabti hadda laga bilaabo please and please mid baan kuu sheegayaa wadnahaagu ilaa uu safaysmo oo aad banaanka ka istaagtid boxkan aad ku dhex jirto oo aad ma garanaysaa aad adigu gudahaaga bugsatid oo aad adigu gudahaaga ishesho sidaa ay sheegayso gabadheenu oo waxa weeyaan waxaad diidayso iyo waxaad doonayso aad kala baratid oo waxa weeyaan please kuur dambe ha isku qaadin banaanka ka istaag waxaan aad ku dhex jirto because haddeerto clearly wax ma arki kartid waxaan waad caadaysatay haddeer dhaqan aan wanaagsanayn baad caadaysatay shukaansigii iyo guurkiiba iskaga kaa khaldamay waxa weeyaan waxaad u baahan tahay muddo inaad bugsato oo banaanka aad ka istaagto waxaad u baahan tahay wax la yiraahdo solitude duurka inaad gasho nature-ka inaad raacdo meel Soomaali joogto inaad in muddo ka cararto waliba social media xataa sanad inaad ka maqlaataan anigu jeclaan lahaa inaad isa soo heshaad u baahan tahay wallahi billahi tallahi inaad soo heshaad u baahan tahay because this is insane inaad waxaad ii sheegaysaa meher ma bixisay 12 jeer meher ma bixisay I am sure qaar baa liigu leeyahay qaar ma bixiyay I'm sure mid yar macnaha adiga waxa ka dhacday okay faxiya cabsi ma hadli karaa aniga iska kay charge gareyn ma hadli karaa go ahead laakiin dhaqanku ma aha tabiici hay waa hadli karaa walaalayaal macaan aniga waxaan ahay nin Soomaaliyeed oo sharaf leh oo karaamo leh sidaan isku arko gabar aan xumeeyay oo aan xaq ka galay ma jirto gabar walba markaan guur u soo bandhigtay way iyaash hadda maxaa ku furtay gabdhihii ila mas'uuliyad baa ku saaran gabdhaha maxaa ku furtay waxaan ku kala tagnay agreement xumo markii hore baa agreementigeena xumaa oo de agreementka maxaa u sii weeday ila adiga ninkii oo qawaamadiisa waay aniga hal shuruud baan leeyahay halka shuruud baa mar walba lagu soo xadgudbaa shuruud maxay ahayd shuruudaas waxa weeye fankayga tiktokayga hoogya baayga waxaan wato afaarahayga laguma qabsan karo laguma soo geli karo marka waxa leedahay iyagoo diyaar u waxa soo dhadhoog oo igu soo galay ayaa hadhow tarabaan inay ibedelaan oo iga saaraan may waa gardarada waxaas hay adiga laftigaagu soo inaa wax ka barato ma ahayn oo dumarka qaarkood lawaa banaanka adoo joogaa kala baran kartaa gudaha markasta maxaa ku geliyay oo baas waxaa igeliyay aniga anaa markayga hore horta khaladka aniga iga yimid anaa isguhaamay dadku Soomaaliya arag inay waaris have power bay gaaladu tiraahdaa dadku inay hadalkooda Ilaahay u qaado hadda ka hor baan hees xun oo najaasa qaado anoo iska caadiyo caafimaad qaba ma heesti barbar ba maya waxaan qaaday hees la yiraahdo waxaan diidayaan jirin waxaan doonayaan jirin waxaan diidayaan jirin habaar baa kaaga dhacay halkaas dumarkana dhammaantood midaan doortamaan helin degdeg iyo fudayd iyo xiisa idaaro dabka igu shidaayo inta daran waxa u daran ugu daran intii daran inuu dooxu kaalumo hadda laakiin run baad sheegaysay maxay tahay intay saas 360 u wareegtay aniga igu soo noqoto haye san gabadhan isguursanaba ma dhamaysanno 6 bilood iyo 7 haye waa isku haaday hadda marka 10 naagood ninka u ducayso waxa la yiri dhabarka ay ka taabtaan cidima hu istaagtay ii duceeye waxa igu ducaynaa waxay igu ducaysaan in Ilaahay mid yar oo qurux badan oo shidan oo tii 12aad ood ku khatinto oon ku khatimo oon ku dego ii taabta hadda numberka may hal loo duceeyo inanka horta loo duceeyo Ilaahay wuxuu ka baryaynaa laakiin eeg hadda waxa tidhi mid yar oo qurux badan oo shidan that's not wax qof lagu doorto ma qurux iyo shidnaan warbaad hadday bahal tahay duntii maxaa helay dignitigii iyo sharaftii iyo cisigii iyo karaamadii iyo dhowrsanaantii iyo samirkii iyo ma garanaysaa maxaa helay so many qualities baa jira intaa wey wali khaladkii baad ku taaganta waxaan ka tegay iigu dara idinku waxaba aniga hay charge garaynina
oday weyn oo idintan sheegtaanahay ninka kaliya daacadnimo idinkugu warramay oo run idin sheegaanahay inta idin yimid rag waa idinka qariyaan waxaasoo dhan ninka kaliya oo inta halkaa yimid runta idin sheegay oo isbiimeeyey oo yiri war aniga laftirkayga baxar ku jira ninka hay weydiinina baan هيا وايا هلو دعيو إلهي وحي نكبرينا ولا لو دعيو وارن رنتنا فتحياي انت هذا دعاء قليل ولا هل دقيقة يسي عمر ولا لو هرتا وانكو السلامة هرتا واحد تعشى إلهي كسيو وين داوضياشا وضع داوضياشا وضع إلى وضع انت الحل ينسي وضع عمر ما وحي قيالي ما وحي صحة او عن شعلاله هنا يدعضم بس سيدا وضع سوماليدو وكسامي وقورك سوماليدو يهي سوماليدو بلادن كيلاهي قلقاي كبداس يعني هذا أكسن كذا فهمي أنا أيضا اسكمال بانك النمد عن أختي مريم إني تان أم لينا يا waxay ka timid meel qofku ama hal mar guursada ama haduu doono uu guursan dhulalka islaamka ina ka timid usually arbay ka timid I can tell waxay dramatize la noqotay laakiin walaalo wuxuu sheegay waxa saxda oo Soomaalida ka dhex jira waana wixii aan galabta sheekada ku bilownay because naagta Soomaaliya toorso hadii qsubaalada lagu geeyo lagu rido elaya waanin oo mid kala soo baxda mid kala ku qabsanaysa waxba la isma weydiyo qualification qofka backgroundkiisa lama weydiyo haduu qof soo dilay lama weydiyo هذا نينكا ولا شيكتي ناك قبل الدليل قبل يسقى حمر لبضة قبل تكون قبل we are in family I know this guy مركا kidding yeah of course مركا دقنكو مركا عمر وحو شيغا وحا ريالتيغا انغونا waxaan ka hadlaynaa waxa ay tahay in la sameeyo marka walaalo horta waad ku mahadsan tahay taladaada iyo runta aad sheegtay sida aanasta ilaahayna kuugu amaal gudi doona waxa safiicnaa leh naagaha Soomaaliyeed oo abeysa xambaarka ah inay wax ka qaataan waxa bari soo ooyana waa ayaga toorsada subaalada hadii la geeyana waa kala soo baxayaan marka walaalo thank you waan ku duceynaynaa laakiin sida ay sheegtay walaalo fadxiyo iyo gabadha coach ay ugu qoran tahay waxa u baahan tahay gabar yar hadihin oo qurux badan waxa tira gabar qeyr qabta oo wadnahayga qofkii aan rabo soulmate-kayga ahay oo ruuxdayda ah oo qalbigayga ah oo naftayda ah oo mataqaana min jisa binafsigayga ah ilaahay oo isfahano وأدونكان maalmaha aan isla joogno walaal macana kaftanka ka saar ilaahay subhanahu wa ta'ala kaftamayo dadkaan qofka runta sheegay nicib yihiin ma yaha waa runta Soomaali because waxa la run sheeg waa ceeb sheeg because waliga run isku ma sheegna anaga khiyaaliyan ku noolnahay wadad احنا عايشين عالم خيالي meel kale aan joogna caalam sax ma joogno waa sida Soomaalida maskaxdu ay tahay waa delusion family ana marka walaala I'm thank you inay kuma mana ku maqlayaan way ku dhaafsan tahay abaa ninka dumarka ugu cayda badan oo ugu akhlaaqda xun waajihey haddana 90% waxa dhageysta waa dumar marka walaal exactly ana kule family-gayga criminal oo dad dila afar qabaad ama saddexaad mar loo guursaday aan waa ninka hada family ya waa normal that's normal xaliya yaa dhageysta oo aad u dhageysta dumarka dhageysta xaliya bariyaha laakiin wuu isbedelay he's doing really he's doing better marka adiga waxa samaysaa jow baalti waxa samaysaa marka waanu ku fadxiina waa si loo duceeyo Umar oo adiguna walaal macaani anu inaan mar walba aqli bandawaankooga Umar oo dadka kugu xirnanahay adinka sano inkasta social media ba laga badiyay laakiin waankooga inaad aqal tahay aan Soomaalidu haday kugu yeeraan majnuun qof Soomaali haduu ku dhamay wad waalanta u kiraa halka qof fiyo ba tahay ma yadee nabiga bal jiro waa waaliyahay majnuun haday ku dhahan waday ku dhahan because waxa ta aqal because waxa aqliyadoodii diiday siday u fakaraan ba diiday runtaad sheegtay waana siday tahay exactly waxba la isma weydiiyo wixii shalada intaanan dadka kale u gudbinayno u duceyno inanka haye bismillah okay ada carabiyada noo ducada igu tufa عمر إلهي وهرت إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرينا وحكستو تعشها أو غيرك كجرا إنه كسيو غير كان أو غير هذا يس غير هنا إلهي إنه غير كودره هذا يس حتى غير كو اللهم آمين إلهي سبحانه وتعالى إنه كسيو قفك آت شعلات بكتشركي يأمتشكي قلبك هذا كتشري وآت شعلات وناك يقروح تقروح ذا تعشى ساق فهمي يو إنكستو لي جمال الروح قلبك ويهمتك قلبك وكبرناك وناهين بعد sida aad jeceshahay oo qayrku kuugu jiro qofkii aad jeceshahay oo qayrku kuugu jiro zawjo wanaagsan xabban qalbak xayaad min nafsak ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu ku siiyo amiin laakiin hal su'aal ina qalbi jilicsan tihiin oo masaakiin tihiin
oo aad masaakiin u tihiin ninkii 11 guursada hadda u sii duceynaysaan miyaa waa ku sii duceeyay hada khayr intaan doonayna hada khayr baan kugu duceyn anigu dambe horta dhageysta faatixada horta ku dara faatixa kuntu foodaga adiga serious u qado lagu duceeyay maxaa ku Allahumma aamin Umar waxaan kugu duceynaa anagu ma garanaysa anagu idinko kale ma nihin anagu markay noqoto inamadayada wanaaga waanu la jecelahay waa adiga arkaya waxyaabahaanu eeg waxyaabo badan oo nimanku ku wanaagsan yihiin waan soo sheegay waxyaabaha hadda gabdhuhu ku wanaagsan yihiin baan idin sheegaya markay noqoto nimanka annaga ilaahay waa noo sakhiray nimanka Soomaaliyeed ilaahay waa noo sakhiray aabahay baanu ka dhaxaragnaa walaalayada maanu ka dhaxaragnaa kulligood mid walba xataa waxaad ka garanaysaa inamada Soomaaliyeed gabdhaha ajnabiga qaba wali ma aragteen gabadh Soomaaliyeed oo nin ajnabi gabadh Soomaaliyeed oo ajnabi nin Soomaaliyeed oo gabadh ajnabi qaba baacsanaysa ama caayaysa ama naagtiisii soo saaratay daaqada wali ma aragteen maya ma aragteen waliga arkimaysid in fact gabdhaha waxaanu nidaahnaa la way qurux badan yihiin waanu amaanaa dumaashi soo dhawow baanu nidaahnaa because nin kastaaba eeg uma aragno kama masayrno inamadayada as long as uu isagu helay ama cadaan ha helo ama madow ha helo ama carabiyad ha helo ama wuxuu doono ha helo waanu jecelnahay inuu habbi noqdaanu jecelnahay kama dhex aragno ma garanaysa alla anuu igu fiicnaan lahaaye nimankii Soomaaliyeed waxaad arkaysaa mid yar iyo mid weyniba hadda bal aniga hadeer inama yararo teenager aba xataa dacalkay haysto oo ay warbaada ay guursan lahaa maxaa ka galay hadan ama ajnabi aan guursado ama waxa doona aan guursaday ma garanaysaa because waxa cuqdad bay qabaan markaad sidaa u eegto gabadhu hadday gabadh roon tahay oo ajnabi guursatana gabdhihii kala kaaga dayanaya because kuma kalsoona ma garanaysaa hadday yar tahayna wuxuu u haystaa anaa rabi lahaaya anaa igu fiicnayda maxay iiga tagtay ma garanaysaa oo they you guys take this very personally marka farxadaanu idinla jecelahay cidda doontaan aad ka helaysaan farxadana waanu idinku baritaarnaa waanu idinku taageernaa waanu idinku riixnaa waanu idinla jecelahay ma garanaysaa marka that's why adoo 11 hablood soo guursaday oo wax laga yaabaa qaar badan oo kamid ah qalbigooda jabiyay wali inaanu haddana waxaanu kula jecelahay ma jabin ana la dili jiray wala garaac jiray maya waxaan ka wadaa qalbi jabkan ka wadaa dumarka aniga way garaacaan maya garaacidda ka hadlay waxaan ka hadlaya qalbi jabka jaale Umar meesha jaajaba ducaadina waa adiga barjaray oo nin jaaja u timida tahay daacad ma wallahi jaaja uma iman fiiri aniga marka wali inaad habbi noqotay bal dad kale aan soo deynay ku yara jira okay toobigayga waxaan ku soo afjarayaa aniga uma imaanin halkan inaan toobigiina idinka bedelo aniga waxaan u imid Fadxiyo Cabsiyoon taageero u ahay inaan salaamo aad baan u jecelahay waa taageeraha hadalkeedan dhageystaa shakhsiyadeedan jecelahay waxaan u imid inaan ku iraahdo inaad yeeray dood qabo haye waa qabanaya hal dhinac ha dhageysanin labada dhinac ba dhageyso hal dhinac ma ba dhageysto qoyan ba aniga u bixiyay dhulka ku jiide ma adigaas wadigo hadda de waa ka dumar kaliya ku saaran kaligay ba isoo saartay wax raga maya wallahi de maana magacyada kala garanayna abti waxyaabo kala dadka u kala qorqoranay coach baa ku daawanayna waxa soo qabanaysay oo dhan waxay ahaayeen dumar bas baa u qoran magacyadii ma kala garanayo ma garanaysaa marka waa soo qabanaya ku jecel baa jira oo ku jecel walaalnimo waa ogahay wallahi waa ogahay waana jecelahay aniguna inamadayada waa jecelahay Allah karaameeyo adigana Allah ku karaameeyo de bal I follow you bal wax weeyaan luuqaas ku soo gali doona luuqa ii soo gal oo aanan ku soo gala warban ku haya tira badan haye waa ku soo galaya bad iga eeg meesha de fariimo badan baa ku soo dhacay waxa tahay popular haye okay assalaamu calaykum haye wa calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh